السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن صاحبة قيمة بدن ميل كستو أدونك آدك جوجتان وهورين سو دوادا halkani waa kanaalka Ilays muuqaalka like saar si uu dad badan u sii gaaro sidoo kale hadii aad markii ugu horeysay halkan soo booqatayna channelka subscribe saar maanta waxaan idin sidaa qiso aad u culus qiso xanuun badan qiso dhacdooyin la yaab leh ay ka buuxaan waa qiso marka aad dhameysato aad dareemi doontid sida in da'daada lagu daray 20 sano oo dheeri ah khibradaha iyo tijaabooyinka ku jira darteed waa qiso aadan dareemi doonin inay saacad socotay iyo inay 5 daqiiqo socotay sababtoo ah daqiiqad walba waxaad dareemi doontaa inaad u baahan tahay inaad mushkilad xaliso qisadan run ahaantii marka ay soconayso waxaad aad ula yaabi doontaa daqiiqad walba oo aad ka murugoo doontaa marxaladaha uu marayo dhibanuhu adigoo isku dayaya inaad mashaakilkiisa xaliso haddaba yaanan idinku dheeraynine ku soo dhawaada qisada ninkan aan ka sheekaynayo waxa uu ku noolaa magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq waxa uu joogtay xaas iyo hal gabar oo ay u dhashay waxa uu ka shaqayn jiray farsamada qalabka elektrooniga sida qasaaladaha iyo waxyaabaha la midka ah asagoo shaqadiisa ku jira maadaama xilligaasi ay ahayd 80meeyadii waxa dhacay dagaalkii u dhaxeeyay Ciraaq iyo Iiraan maadaama uu u dhashay dalka Ciraaq ayaa dawladdu waxa ay si qasaba ugu dartay dagaalkaasi maxaa yeelay dad badan ayaa dagaalka si qasaba loogu biirinayay oo lagu qasbayay in hubkooda qaataan oo ay la dagaalamaan dawladda Iiraan waxa uu ka mid ahaa dadkii u dhashay dalka Ciraaq ee dagaalkaasi sida qasabka ah ku galay ninkan xaaskiisa iyo gabadhiisa kaligood ayay guri degan yihiin qofna kama warhayo maadaama asagii ka warhayayna uu dagaal ku jiro oo uu ka soo fogaaday waxa uu doonayay in dagaalkan si uu uga baxo oo uu ku laabto gurigiisii si gabadhiisii yareed ee uu aadka u jeclaa iyo xaaskiisii uu mar kale ugu laabto oo uu uga warhayo xaaladooda markan waxa uu ka fikirayaa sidii dagaalkani uu uga bixi lahaa oo uu ugu laaban lahaa qoyskiisa maxaa yeelay waxa uu arkayaa maalin walba dad aad u fara badan oo asxaabtiisa ahaa oo hortiisa ku dhimanaya meeshu waa dagaal dad ayaana ku dhimanaya sidaa daraadeed maadaama nolosha uu hadda bilaabay hal gabarna ay u joogto xaaskiisa iyo gabadhiisa ma doonayo inuu dunida ku cidleeyo dagaalkaana ma doonayo inuu ku baxo ugu dambeyn qorshe iyo fikir dheer kadib waxa uu go'aan ku gaaray inuu fuliyo waxa uu ku fikiray haddaba muxuu ku fikiray waxa uu soo qaatay qorigiisa kadibna gacanta ayuu xabad iskaga dhuftay kadibna waxaa go'day faryaraydiisa iyo farta ku xigta waxaana loo qaaday isbitaal sidaas ayaana dagaalkii looga bixiyay sababta uu xabadda iskugu dhuftayna waa kaliya sidii uu dagaalkan uga bixi lahaa isbitaal ayaa la geeyay halkii ayaa lagu daaweeyay arrinkii dagaalka ahaana waa looga tanaasulayo dawladdu waa iska fasaxday maadaama uu dhaawac yahay sidaas ayuuna ugu laabtay xaaskiisii iyo gabadhiisii waana uu caafimaaday oo gacantii waa ay u raysatay kadibna shaqadiisii hore ayuu ku laabtay shaqadiisu maxay ahayd waxa uu furneed meel uu ku farsameeyo qalabka elektrooniga sida qasaaladaha raadiyoyada iyo waxyaabaha la midka ah ninkan xaaskiisu waxay u dhashay gabadhii labaad muddo kadib waxa uu dhalatay gabadhiisii saddexaad waxa uu doonayaa markan in uu wiil u dhasho laakiinse ilaahay uma qadarino gabadhiisii afraad tiisii shanaad tii lixaad tii toddobaad u dhalatay dhammaan toddobadiisa carruurta ahi waa wada gabdho ninkanna aad ayuu ugu qanacsan yahay gabdhihiisa oo ma ahan sida ragga qaar aad ayuuna ugu qanacsan yahay qaybta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u gartay waxa uu ahaa nin dabeecad wanaagsan ehelka qaraabada iyo derisku intaba ay aad u jecel yihiin dhanka kalena ninkani waxa uu ahaa nin aad uga fikira reerkiisa gabdhihiisana aad ayuu u jeclaa waxa uu mar walba u shaqayn jiray sidii qoyskiisu aysan wax kale ama cid kale ugu baahan lahayn ee uu u dabooli lahaa baahiyahooda muddo kadib markii uu waqtigu socday labadiisii gabdhood ee ugu weyneed ayaaba guursadayo gabdhihiisii waa ay u koreen haddaba saaxiibayaal ninkan toddobadiisa gabdhood
waxaa ku jirta gabar dhaxaad. Maxaan ula jeedaa? Waa gabadha ah da'da afaraad oo saddexna ay ka weyn yihiin, saddexna ay ka yar yihiin. Gabadhaani aad ay uga duwaneed gabdhaha. Waxa kaliya ay uga duwaneedna waxa weeyaan waxay ahayd gabar aad u qurux badan. Qurux aanan erayo ku cabiri karin. Si aan dabiici ahayn ayay gabadhaani u qurux badneed. Run ahaantii gabadhan waxaa lagu magacaabaa Susan, waana udub dhaxaadka qisadeena maanta ee si fiican gabadhaani isha ugu haya. Haddaba aabbaha gabdhahan iyo qoyskiisa hal mar aan ka soo dhaxbaxno. Aabbaha gabdhahan waxaa la dhashay nin kale, ninkaasina waxa uu la deganaa magaalada Baghdad. Ninkaas kale ee gabdhahan adeerka u ah waxa uu jooga wiilkiisu waxa uu jiraa 17 sano. Wiilkaasina waa wiil aad u mushkilad badan. Mashaakilkiisuna waxa ay ku saabsan yihiin dhanka dumarka oo kaliya. Waa wiil aad u xariiro badan, shukaansigiisu badan yahay. Aabihiis ayuu lacag ka qaadaa, gabdhaha ayuu ku bixinayaa, middan ayuu la sheekaysanayaa, middan ayuu la soo cashaynayaa. Gabar ayaa ka soo dacwoonaysa, mushkilad asaga iyo gabar u dhaxaysa ayaa la xalinayaa. Wiilkan mashaakilkiisa oo dhanba waxay ku dul wareegayaan gabdhaha. Haddaba aabbaha dhalay wiilkan, maadaama uu jiro walaalkiis asaga la dhashay oo gabdho badan ay u joogaan oo ilaa iyo 7 ahaa, 2na laga guursaday, 5na ay weli u joogaan, waxa uu go'aan ku gaaray in uu la hadlo wiilkiisa oo uu weydiiyo in uu gabdhaha adeerkiis mid ka mida guursado, si mashaakilkaani ay u soo gabangaboobaan wiilkaani uu maalin walba ku jiro. Wiilkii aabihiis ayuu la hadlay, waxa uu u sheegay inuusan doonaynin in gabdhaha adeerkiis uu guursado. Aabihiina arrinka waa uu ku adkeeyey. Laakiin wiilkii waxa uu yidhi, aabe, gabadha adeerkay ee lagu magacaabo Susan ee aadka u quruxda badan, haddii la isiinayo waan ogolahay, laakiin gabar kale oo adeerkay dhalay ma guursanayo. Markaasi kadib wiilka aabihiis waa uu soo baxay, waxa uuna soo aaday walaalkiis, waxa uuna uga sheekeeyey arrinka iyo sida ay wax u jiraan. Waxa uu ku yidhi, walaalkayow, sida aad ogtahayba wiilkayga waa wiilkayga Cabdinaasir, waxa uu jiraa 17 sano. Dhib badan ayaa ka jira dhanka xariiradiisa uu la leeyahay gabdhaha. Mar walba waxaan xalinaa mashaakil u dhaxeeya asaga iyo gabar kale. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan u guuriyo. Waxaana u sheegay in gabdhahaada mid ka mid aan u guurinayo. Laakiinse markii ugu horreysay waa uu iga diiday. Ugu dambeynna waxa uu igu yidhi, gabadha Susan ah ee adeerkay dhalay ee quruxda badan, haddii adeerkay isiinayo waan ogolahay oo waan guursanayaa. Haddana walaalkayga qaaliga ahaayow, waxaan marti kaaga nahay gabadhaada Susan. Waxa uu ku yidhi, dhib ma lahan, waa soo jeedin wanaagsan, waana kaa aqbalay. Waxaana la hadlayaa gabadha hooyadeed, arrinka ayaana u sheegayaa. Haddaba odaygii waa uu baxay, waxa uuna u tegay xaaskiisa. Waxa uuna u sheegay arrinka uu walaalkiis kala soo kulmay iyo in gabadhooda uu doonayo inuu u guuriyo wiilkiisa. Hooyadii waxay tiri, dhib ma lahan, haddii uu midda dhexe doortay iyo haddii uu mid kale doortaba, gabdhahaygu waa isku mid. Midda uu doortay ayaana loo guurinayaa, wax dhib ahna ma lahan. Kadibna arrinkii sidaa ayaa la isugu waafaqay. Gabadhii Susan aheedna waa loo sheegay. Kadibna maadaama ay ahayd gabar da'yar oo xilligaasi jirta 15 sano oo kaliya, waa 15 sano oo kaliya, waa gabar da'yar, qurux badan, qalbi wanaagsan. Soo jeedintii aabaheed iyo hooyadeedna horay ayay ka aqbashay, iyo in walaalkeed loo guuriyo. Markaas wixii ka dambeeyay waxaa la diyaariyay guurka Susan iyo Cabdinaasir. Qabanqaabadii arooskooda iyo mashquulkaasi dheer kadib, ugu dambeyn Susan waxaa loo soo galbiyey guriga ninkeeda cusub ee Cabdinaasir. Waa ninkeeda cusub, waa wiilkii ina adeerkeed ahaa. Waxaana xusid mudan Cabdinaasir waxa uu la degay oo uu qayb ka degay isla gurigii aabihiis, yacni waxa uu gabadha la dejiyey isla qoyskiisa. Halkaasi ayayna noloshii ka bilaabeen. Laakiin Cabdinaasir isbuucii koowaad oo kaliya ayuu ka nastay arrinkii gabdhaha iyo shukaansigii iyo xariiradii faraha badnaa iyo wixii arrimahaasi ku saabsanaa. Markii uu isbuucii koowaad dhammaaday oo 7 ay ka baxeenba, meeshiisii ayuu ka bilaabay xariiradiisii faraha badnaa, telefoonku hadalkiisii iyo gabdhihii uu iska daba wareejin jiray. Gabadhii in adeertiis ahayd ee uu guursadayna
waa ay ogaatay arrinkiisa laakiinse markii ay fikirtay waxaa u soo baxday intaasi iyo inay la doodo aysan wax macno ah samaynaynin waxayna go'aansatay inay iskaga sabarto sidaasi ayuuna xaalku ahaa haddaba sanadkaasi Susan loo guurinayo wiilka adeerkeed waa sanadkii 2006 sida aad ogtihiin sanadkaasi waa bilowgii kacdoonka tiknoolajiyadda iyo social media waxa soo baxay application badan oo lagu wada xiriiro sida Nimbus, eBuddy, Mfrahan iyo kuwa markaasi la mid ahaa wiilkii Cabdinaasir ahaa applicationadii asagoo ka faa'iideysanaya ayaa xiriiradii u lahaa iyo shukaansigiisa cirka ayuu isku sii shareeray maxaa yeelay wadamada Carabta xilligaasi gabdho badan ayaa waxay helayeen fursad ay rag kula hadlaan ayagoo applicationadaasi isticmaalaya si kastaba ha ahaatee sanadkii koowaad ayaa sidaasi ku dhamaaday kii labaad kii saddexaad kii afaraad ilaa laga soo gaarayo sanadihii 2011 ninkii asaga ahaana sidiisii ayuu xiriiradiisii u wadaa gabadhii Susan ahaydna waa ay ku daashay arrinkiisa dhowr jeer ayay la hadashay laakiinse hadalkeeda waxba kama soo naasacadaanin maxaa yeelay ilaa iyo hadda wax caruur ah ma aysan dhalin oo Allah uma qorin inay caruur dhasho dhanka kalena ma haysato fursad iyo waqti fiican oo ninkeeda ay la qaadato maxaa yeelay inta badan waa uu maqan yahay arrimihiisa shukaansigana cirka ayay isku sii shareereen oo habeenada qaar ayuu dhaxayaa safaro gaagaaban ayuu gelayaa waxa uu bilaabay inuu gabdhaha la soo casheeyo waxyaabo badan oo gabadhu ay aad ula yaabtay oo ay ka maseertay ayay indhaheeda ku aragtay ugu dambeyn markii ay fikirtay waxa u soo baxday in arrintaani aysan waxba ka qaban karin waxayna ka dalbatay Cabdinaasir inuu u soo iibiyo taleefan cusub waa taleefan weyn oo ay ku mashquuli karto waxa ay ku tiri maadaama inta badan aad maqan tahay waxaan doonayaa taleefan aan isku mashquuliyo oo aan ka daawado YouTube-ka iyo waxyaabaha la midka ah si aan iskugu mashquuliyo oo aan wehel uga dhigto ninkii asaga ahaa aad ayuu u soo dhaweeyay arrintaas durba taleefan uu gacanta ku hayay ayuu yiri hoo qaado waxa ku xiran internet waxa doonto ayaad u isticmaali kartaa asaga isku mashquuli ee kaliya iga jooji maseerka iyo muranka iyo waxyaabaha maalin walba aad i weydiinayso ee faraha badan Susan run ahaantii arrintaasi aad ay ugu faraxday laakiinse markii uu taleefanka siiyay kadib ayuu ku yiri iska jir haddii aad la hadasho wiilal lama garanayo sababta uu sidaas u yiri laakiinse jumladaas ayuu u raaciyay hadalkiisa ayaduna markii uu ka tagay kadib waxay niyadda iska tiri asaguna maalin walba asagoo ila jooga ayuu gabdho la hadlayaa anigana waxa uu ileeyahay wiil ha la hadlin walee warkaasi waxa uu u eg yahay war malagiis galay ayada unbaa isla hadlaysa laakiin qofna hadalkaasi uma aysan sheegin waxa uu xaalku sidaas ahaadaba gabadhii Susan ahayd shaydaanka ayaa u yimid waxa uuna ku waswaasiyay waxyaabo run ahaantii natiijo aad u xun ay ka dhala doonto laakiinse marka hore shaydaanku jaranjarada ay ka horeyso ayuu ku saarayaa waxay niyadda iska tiri ka waran haddii aad iskala sheekaysato dhalinyarada laakiinse aadan wejigaada iyo aqoonsigaada qofna tusin balse kaliya aad iskala sheekaysato mustaqbalka ma rabtid oo waxa tahay gabar la qabo laakiin haddana kaliya waad iskala sheekaysanaysaa oo kaliya mana samayn doontid wax ka badan haasawahaas iyo waqti lumiskaas haddaba arrintii ayay ku dhaqaaqday muddo kooban ayayna arrintaasi samaynaysay oo wiilal dhalinyaro ah ay la xiriiraysay fariimo ayayna ku wada hadlayeen laakiinse marna wejigeeda qofna ma aysan tusin aqoonsigeedana waa ay ilaalisay sawirkeedana qofna uma aysan dirin balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo wacay lambar aysan garanayn waa ay ka qabatay hello waxaa lagu yiri Susan soo ma ahan haa waxaan doonayaa inaan kula hadlo waa inaad hadalkayga si fiican u dhagaysataa haddii kale waan xanaaqayaa waxaana ka dhalanaysa natiijo aadan ku farxi doonin waxay ku tiri yaa waay adigu wuxuu ku yiri iska dhaaf waxaas dabcan qofka soo wacay waa nin waxa uu ku yiri iska daa warka badan ee waxaa tagtaa application hebel waxbaana kuu soo dirayaa ee si fiican u eeg waxa aan kuu soo dirayo dabcan waxaa loo tilmaamay mid ka mid ah applicationadii ay markaasi isticmaalaysay gabadhii waxaa loo soo diray sawiradeeda waa sawiro ayadu ay gashay oo horay ay u gashay laakiinse aan asturnayn
sawiradan waa sawiro ay gashay markii ay arooskeeda isku diyaarinaysay, ayadoo dhar cusub soo iibsanaysa, ayadoo dharkii soo iibsatay, ayadoo isku tijaabinaysa, ayadoo jirkeeda meelo badan oo kamida ay qaawan yihiin. dabcan sawiro aan asturnayn oo aan ku habboonayn in la arko ayay sawiradaasi ahaayeen. gabadhii cirka ayaa looga soo dhacay, run ahaantii aad ayay u naxday. waxay ku tiri, halkii ayaad sawirada ka keentay? maxaa kugu dhacay? yaa tahay adigu? waxay bilowday inay qayliso. wuxuu ku yidhi ninkii, isdeji, waxba ha qaylin, waxaan kuu soo dirayaa sawiro kale oo adigu xitaa aad isla yaabi doontid. kadibna taleefankii ayuu ku jaray. isla markiiba waxa uu u soo diray sawir ayadu ay leedahay. run ahaantii aad ayay u yaabtay, sababtoo ah sawirkaani waa sawir keliya ay wadato dharkii gudaha. dharka gudaha markaan ku leeyahay waad iska fahmi kartaa, wax badan ma asturna. gabadhii waxay bilowday inay iska oyso. ninkii ayay wacday, yaa tahay adigu? maxaa tahay? sawiradeeda intaa ka heshay? ayadoo ooyeysa. waxa uu ku yidhi, si kastaba ha ahaatee sawiradaada waan hayaa, waxaana doonayaa inaan aabbaha iyo ninkaada tuso sawiradaada, anigoo u sheegaya in adigu aad ii soo dirtay. sababtoo ah waxaan ogahay in wiilal badan oo dhallinyaro ah aad internetka kala sheekaysatid oo aad qaraabato adigoo lagu qabo. gabadhii aad ayay u naxday, sababtoo ah waxay la yaaban tahay sida ay waxaani u dhacayaan. waxayna hubtaa in weligeed aysan wiil sawir u dirin, halka sawiradan laga keenay ayayna fahmi laadahay. si kastaba ha ahaatee gabadhii markii uu xaalkeedu halkaas marayo, ninkii mar kale ayuu soo wacay. waxa uuna ku yidhi, waxaan doonayaa inaad hal shardi oo keliya ii fuliso. hooyada, aabbaha, ninkaada, dadkaasoo dhan ma kugu fadeexaynayo, mana doonayo in noloshaada aan burburiyo, laakiinse hal shardi oo keliya ayaad ii fulinaysaa. waxay ku tiri, waa maxay shardigaasi? muxuu yahay? wuxuu ku yidhi, waan ogahay inaad internetka ku jirto oo aad qaraabato, wiilal badanna aad la hadasho. maxay tahay sababta aad aniga iila hadli weysay? waxay ku tiri, maxaan kula hadlaa? adigaa ii hanjabay, sawiraad ii soo dirtay, waad iga naxisay, waan kula hadli lahaa. wuxuu ku yidhi, dhib ma lahan, hadda anigu waxba kaama rabo, keliya waxaan doonayaa in labadii maalinba hal mar aan ku soo waco. waxay ku tiri, maxaad ii soo wacaysaa labadii maalinba hal mar? wuxuu ku yidhi, dhib ma lahan, waxaan doonayaa marka aan ku soo waco inaad ii soo dirto sawiro dheeraad ah. yacni waxa uu doonayaa gabadhii inay u soo dirto sawiro kale oo dheeraad ah. waxa uu ku yidhi, haddii aad ii soo diri weyso oo waxa aan doonayo aad fuli weyso, ogow sawiradan waxa ay gaari doonaan aabbaha. gabadhu markay aabbaheed maqashaba way isku naxaysaa, sababtoo ah aabbaheed waa askari hore, waa nin sharafta gabdhihiisa ka dhinta, waxayna og tahay inaysan noolaanayn haddii uu waxaanoo kale ogaado. waxay ku tiri, waa ku baryaa, aabbahay ha gaarsiinin, noloshayda ha burburinin. waxa uu ku yidhi, waa inaad ii soo dirto sawirada aan doonayo. markaasi wixii ka dambeeyey, gabadhii suusaan ahayd halkaasi nolol kale ayaa uga bilaabatay oo run ahaantii aad u la yaab badan. labadii maalinba hal mar ayuu soo wacaa. waxa uu u tilmaamayaa sawirka qaabkii ay u geli lahayd iyo nuuca dharka ay xiran lahayd iyo sida ay u ekaanayso marka ay sawiradaasi gelayso. waxay u dirtay sawiro badan oo qaawan oo kuwii horeba ka sii daran, ayadoo weliba joogta qolkeedii jeefka iyo gurigeedii. run ahaantii waxay ahayd caqli xumo gabadhaasi ay ku kacday iyo go'aankii ugu khaldanaa oo nolosheeda burburi doona. si kastaba ha ahaatee, haddaba markii ay sawiro aad u badan u dirtay, gabadhii sawiradeeda waxa uu ka sameeyey fayl dhan oo sawiro ah. kadibna gabadhii ayuu soo wacay, wuxuuna ku yidhi, ma ogtahay inaad ii soo dirtay sawiro qaawan oo aad joogto qolkaadii jiifka oo gurigaadii aad joogto, weliba adigu aad ii soo dirtay adigoo khiyaar leh? waxay ku tiri, hee, maxaa dhacay? waxa uu ku yidhi, haddaba hal shardi oo kale ayaan wataa, haddii aadan fulinna sawiradaani aabbaha ayay gaarayaan, ayadoo weliba aad qaawan tahay oo qolkaadii dhexdiisa aad sawirada iiga soo duubtay. gabadhii aad ayay u naxday. waxay ku tiri, waa maxay shardigaasi aad doonaysid inaan kuu fuliyo? wuxuu ku yidhi, shardigaasi wax kale ma ahan, waxaan doonayaa in ninkaada aad iska furto. ninkaada ayaad u tegaysaa, kuleetiga ayaad uga dhigaysaa, waxaadna ka dalbanaysaa inuu ku furo. wallaahi ilaah baan ku dhaartay, haddii aad dalabkaasi fuli weysana
sawiradaani waxay gaarayaan aabbaha. Gabadhii aad ayay u yaabtay. Taleefanka ayaa lagu damiyey. Kadibna waxay bilowday inay fikirto. Waxay ka fikiraysaa haddii sawiradaadu ay gaaraan familka, ama aabe ayaa ku dilaya oo waad dhimanaysaa, ama ninkaada ayaa ku dilaya oo waad dhimanaysaa. Si kastaba ma noolaanaysid. Laakiinse haddii aad ninkaada iska furto wax dhibaato ah kuma soo gaarayaan, sababtoo ah ninkaada markii horeba iskuma aadan wanaagsanayn, xiriir fiicanna idinkama uusan dhaxaynin. Haddii aad iska furtana qof muhiim ah oo qaali ah ma aadan khasaarin oo ma aadan weynin. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii waxay go'aan ku gaartay inay ninkeeda iska furto, sababtoo ah qofkan aysan garanayn ee soo wacaya waxa uu u sheegay in haddii ninkeeda ay iska furto, dalabkaasi uu yahay midkii ugu dambeeyey ee uu ka dalbanayo, mar dambana uusan la soo xiriiraynin, sawiradeedana uu taleefankiisa ka daleedi doono. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii ninkeeda ayay u tagtay. Cabdinaasir ayay u tagtay, waxayna ka dalbatay inuu furo. Laakiin wuxuu weydiiyey sababta ay furiinka uga dalbanayso. Waxay u sheegtay in intaasoo sano ay isqabaan, welina carruur aysan isku dhalin, asagu mar walba uu ka mashquulsan yahay, farxad iyo waqti ku filan uusan siinaynin. Adugu waxay soo tirisay wax walba oo disadvantage ah oo ninkeeda ay ka tabanayso. Kadibna maadaama awalba asagu uusan jeclayn, uuna dareemayay inay caqabadba ku tahay oo ay ka hor taagan tahay shukaansigiisa iyo noloshiisa iyo waxyaabahan kale ee uu ku fikirayo, isla markiiba waa uu furay oo kuma uusan sii daahin. Gabadhiina sidaas ayay ku tagtay gurigii familkeeda. Markii ay tagtay gurigii hooyadeed iyo aabbaheed ayadoo garoob ah, muddo koobanna ay halkaasi ku noolaatay, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo wacay ninkii asaga ahaa. Waa ninkii aysan garanayn ee sawiradeeda ugu hanjabayay inuu faafi doono. Markii uu soo wacay aad ayay uga carootay wicitaankiisa, waxayna u sheegtay inuu khaldan yahay, maadaama uu ka ballan qaaday in haddii ninkeeda ay iska furto uusan mar dambe soo wici doonin, dalabkaasina uu yahay kii ugu dambeeyey. Markii ay sidaasi ula hadashay, ninkii waa uu ku qoslay, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad u malaynaysaa inaan halkaasi kaaga harayo? Haddaba waxaad ogaataa, haddii aan ku soo waco ee aad iga qaban weyso taleefanka, wixii kugu dhaca adiga uunbaa isku dhigay. Taleefankii ayuuna sidaasi ugu jaray. Gabadhii waa ay yaaban tahay, sababtoo ah ninkaani mar walba waxa uu u sheegayaa inuu ayada garanayo, aabbaheed garanayo, ninkeeda garanayo, dhammaan familkeeda oo dhanna uu si fiican u yaqaano. Si fiican ayuuna ugu tilmaamayaa wax walba oo nolosheeda ku saabsan, sida in uu u garanayo si aan caadi ahayn. Waxa uu u sheegayaa aabbaheed iyo meesha uu ka shaqeeyo iyo wax walba oo ku saabsan ayada xogteeda. Wuxuuna u sheegayaa in aabbaheed inuu sawirada gaarsiiyo ay aad ugu fududahay asaga. Gabadhii waxay isku dayday inay ninkaani ogaato oo ay aqoonsato. Dabcan codkiisa waa ay garan weysay, sawirkiisa ah uma uusan soo dirin, akoonnadiisana wax sawir ah uma saarna. Dabcanna waxaa ugu qoran magac been abuur ah. Dhanka kale, marka uu video call ku soo wacayo, wejigiisa waa uu qarsanayaa oo asaga lama arkayo. Si kastaba ha ahaatee, markii ay si kasta u baartay, waa ay garan weysay, waana ay soo saari weysay ninkan. Maxaa yeelay xitaa kama dalbanayo wax ku saabsan asaga naftiisa, sida inuu yiraahdo ii imaw oo kaleeto iyo waxyaabo la mid ah. Ma ka dalbanayo, mana doonayo inuu la kulmo. Kaliya waxa uu doonayaa inuu fadeexeeyo oo sidaas uu ugu hanjabo. Gabadhii markii ay ogaatay in ninkaani uusan sidaas uga haraynin, dalabaad badan oo waaweynna uu u diri doono, ayay go'aansatay inay qof uun la tashato. Dabcan hooyo iyo aabe lama tashan karto oo waaba ay ka cabsanaysaa ayaga. Markan ayay fikiraysaa ayadoo raadinaysa qofkii ay la tashan lahayd. Markii ugu horreysayba waxaa ku soo dhacay shiiqa qaraabada. Dabcan carabta sida caadiga ah jufo kasta waxay leeyihiin nin shiiq ah oo arrimaha qoyska iyo waxyaabahaas oo dhan laga talageliyo. Shiiqan waa shiiqa qaraabadooda, waa nin shiiq ah oo dhalay carruur badan oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira. Dhanka kalena mashaakilka dadka si hoose ula xalliya. Dhanka kalena waa nin ismaarti ah, bimacna alkalima, waa nin aad u caqli badan. Suusaanna horay ayay u aragtay asagoo dad badan mashaakilkooda la xalinaya. Kadibna lambarkiisa ayay raadisay, wayna wacday. Waxay ku tiri assalaamu calaykum. Wuxuu ku yidhi wacalaykum salaam, waa ayo qofka ila hadlaya. Waxay ku tiri shiiqow, ma awoodo inaan kuu sheego
xogtayda iyo aqoonsigayga dhabta ah, laakiinse magacaygu waa Susan. Waxaan ahay gabar ka mid ah gabdhahaada, waxaana ay haysata mushkilad. Wuxuu ku yidhi dhib ma lahan ee ii sheeg mushkiladda ku haysata. Kadibna waxay bilowday inay uga sheekayso mushkiladda haysata. Waxay uga soo bilowday bilowgii hore ee guurkeeda ilaa iyo markii uu ninkaani soo wacay, ilaa iyo markii ay sawirada dheeraadka ah u dirtay, ilaa iyo markii uu ka dalbaday in ninkeeda ay iska furto, ilaa iyo marka ay guriga familkeeda ku soo laabatay ee haddana uu soo wacayo asagoo u sheegaya in haddii uu soo waco oo ay ka qaban weyso uu fadeexaynayo arrinkana uu aabbaheed gaarsiinayo. Waxayna ku tiri shiiqow, ninkaani waa nin si fiican ii garanaya. Waxa uu garanayaa familkeyga oo dhan, aabbahay iyo shaqadiisa, aniga, ninka i qaba, dhammaan wax walba oo ku saabsan noloshayda ayuu garanayaa. Dabcan shiiqii waxa uu ahaa nin aad u caqli badan. Isla markiiba waxa uu abbaaray boontiga ugu muhiimsan ee halxiraalaha gabadhan kiiskeeda. Waxa uu ku yidhi sawiradaasi ma yihiin sawiradii ugu horreysay ee uu kuu soo dirayay, ma yihiin sawiro adiga aad gashay oo dhab ah, mase waxay ahaayeen kuwo gacan ku samays ah ama Photoshop ah? Waxay ku tiri haa, sawirada aniga ayaa galay, waana xasuustaa markii aan galayo waxaan isku tijaabinayay dharkayga arooska. Dhammaan sawiradii ugu horreeyay ee uu ii soo dirayna waxay ahaayeen sawiro aan galay xilligii arooskayga, maalmo ka hor arooskayga. Shiiqii waa uu fakiray. Waxa uu ku yidhi sawiradaasi yaad u dirtay? Waxay tiri ma garanayo wallaahi. Dib ayay u fakirtay. Waxay tiri waxaan u diray gabdhaha habaryartay. Markaas wuxuu ku yidhi gabdhaha habaryarta ma la qabaa mise guriga ayay joogaan? Waxay ku tiri waa la qabaa badankood. Markaas ayuu ku yidhi gabdhaha habaryarta nimanka qaba ii soo tiri, soo ma garanaysid? Waxay ku tiri haa, si fiican ayaan u garanayaa. Waxa uu ku yidhi ii soo tiri. Waxay ku tiri midka ugu horreeya waxa uu jiraa 50 sano, waxa uu joogta carruur badan, waxa uuna ka shaqeeyaa shaqo aad u wanaagsan, waana nin hantiilo ah. Wuxuu ku yidhi dhib ma lahan, midkaas ka gudub. Waxay ku tiri kan xiga waxa uu jiraa 60 sano, waxa uuna gabadha habaryartii la qabaa gabar kale, sidaa daraaddeed waa nin inta badan iska mashquulsan. Wuxuu ku yidhi kaana ka soco, waa mid xalaal raadinaya haddii uu 2 gabdhood isku qabee. Waxay ku tiri midka xiga waa nin cuuriyaan ah, carruur badan ayaa u joogta, shil gaari oo uu galay ayuuna dhibkaasi ka soo gaaray. Waxa uu ku yidhi midkaasi ka soco, waa nin maskiin ah. Waxay ku tiri midka afraad waxa uu jiraa 31 sano, waana mid ani ahaan aanan jeclayn, maxaa yeelay marka aan la kulmayo gabdhaha habaryartay waxa uu ii fiiriyaa si aanan wanaagsanayn, wax weji ahna uma hayo, waana nin niyad ahaan aanan jeclayn. Dowladda ayuuna u shaqeeyaa oo xafiisyada dowladda ayuu ka shaqeeyaa. Shiiqii waxa uu ku yidhi anigu midkaas ayaan ka shakisanahay 100% ee ka waran xaalkiisa. Gabadhii waxay ku tiri shiiqow macquul ma ahan, ninkaasi waxaas ma samayn karo, qaraabo aad iskugu dhow ayaan nahay, kuma dhiiran karo waxaasoo kale inuu sameeyo. Waxa uu ku yidhi shiiqii dhib ma lahane, gabar yahay, looma baahna in naftaada adigu aad ciqaabto. Qof noocaas ah oo sidaas u dhaqmayana looma baahna inaad fursad siiso. Mar dambe fursad ha siinin, wixii dhacay waa ay dhaceen. Mar dambena khaladkaas oo kale ha gelin, lambarkiisa iska baloogaray, dhammaan meelaha aad ka wada hadashaanna baloog ka saar. Mar dambena ha isku dayin inaad la hadasho oo aad siiso fursad uu kugu sii hanjabo. Gabadhii Susan ahayd si toos ah ayay u qaadatay taladii shiiqa, waxayna go'aansatay inay fuliso dhammaan talooyinkii uu shiiqu siiyey. Ninkiina lambarkiisa baloog ayay saartay, dhammaan meelihii kale ee uu kala soo xiriiri jirayna baloog ayay saartay. Maalmo ayuuna xaalku sidaas ahaa. Maalmo kadib waxaa soo wacay lambar aysan garanayn. Way ka qabatay, saa waaba ninkii oo xanaaqsan. Waxa uu ku leeyahay sidee ayaad ugu dhiiratay inaad baloog isaarto? Sidee ayaad ugu dhiiratay inaad waxaa samayso? Waad ogaan doontaa waxa aan kugu dhigo ee waqti yar sug. Haddaba sidii ayuu taleefankii ugu jaray. 2 maalmood ayaa ka soo wareegatay. Maxaad u malaynaysaa in ninkii uu sameeyey? Gabadhii sawiradeedii ayuu soo qaatay, kadibna waa uu soo daabacay. Weliba sawiradeeda kuwii ugu liitay ayuu soo daabacay. Sida caadiga ah ee loo daabaco warqad ahaan ayuu u soo daabacay.
waxa uuna ku soo riday bashqad. Waxa uu yimid meeshii uu ka shaqaynayay gabadha aabaheed, waa Susan aabaheed. wax yar marka uu u jirana wiil yar oo carruurtii wadada taagneed ah ayuu u dhiibay bashqadan. waxa uuna ku yiri u geey ninkaas odayga ah ee jooga meesha lagu farsameynayo qalabka elektrooniga, una dhiib oo u sheeg inay tahay fariin loo soo dhiibay. sidii ayuu sameeyey. cunugii yaraa ayaa fariintii qaaday, waxa uuna u geeyey Susan aabaheed. odaygii waa uu la yaabay fariinta, laakiinse waa uu furay. markii uu cunugii yaraa ka qaatay kadib, markii uu furayba waa sawiradii gabadhiisa Susan oo aad u foolxumo badan. run ahaantii odaygii aad ayuu iskugu naxay, kadibna meeshii ayuu ku dhacay oo waa uu miyir daboolmay. laakiinse qofna ma aysan u imaanin ee isla asagii ayaa soo kacay. markaas ayuu si dhaqso ah u soo aaday gurigiisa. gurigii ayuu soo galay. maamadii yacni Susan hooyadeed ayuu horta garaacitaankii ku bilaabay. maamadii ayuu si aan caadi ahayn u garaacay. kadibna waxa uu ku yiri aaway gabadhaadi Susan. waxa lagu yiri waxay ku jirtaa qolka. kadibna qolkii ayuu ugu tegay. gabadhii ayuuna bilaabay inuu garaaco, weliba asagoo u garaacaya si naxariis la'aan ah. waa uu garaacay ilaa ay dhulka ku dhacday ayadoo meyd aan waxba dhaamin oo aan farna dhaqaaji karin. kadibna waxa uu ku xiray qolkii. waxa uu niyeystay inuusan meeshan ku dilin, maadaama uu doonayo inuu qudha ka jaro. waxa uu go'aansaday in hadda uu sideeda uga tago, kadibna uu diyaariyo safar yar oo uu ku aadayo magaalada banaankeeda. Susanna uu meeshaasi u wado oo halkaas uu ku soo dilo, isla meeshaasna uu ku soo duugo, ceebteedana uu halkaasi isku dhaafiyo. si kastaba ha ahaatee, gabadhii Susan ahayd meesheedii ayay ku jirtaa. qofna lama hadlo. halkaas ayaa loogu geeyaa cuntada, kadibna waa lagu soo xiraa. qolkaasna ma dhaafto, oo xitaa qolkaas inay ka soo baxdo lama ogola. aabbihiina waxa uu ku fakarayaa inuu dilo. keliya waxa uu ka fakarayaa waqtigii uu dili lahaa iyo sidii ugu habbooneed ee uu u dili lahaa, ee uu ceebteeda isku dhaafin lahaa. gabadhii halkii ayay ku jirtaa. maalmaha ayaana xowli ku socday. khalaas nolosha waa ay ka niyad jabtay. aabbaheedna waxa uu ku fakarayaa sidii uu u dili lahaa. haddaba aabbaheed maadaama uu ahaa nin waayeel ah, haddana iska xanuunsanaa markiisii horeba, waxaa ku kacday sonkortii. cadaadiskii dhiigga ayaa ku kacay. sidoo kalena cudurro badan ayaa arrintaasi ku sababtay. maalin maalmaha ka mid ah, isagoo fakaraya ayuu miyir daboolmay. waxaana loo qaatay inuuba geeriyooday. isbitaalka ayaa loola cararay. halkaasi ayaana muddo lagu dabiibayay. dhammaan ehelkiisa iyo qaraabadiisuna isbitaalka ayay ku soo booqdeen. qaraabada ugu dhowdhowna wayba ogaadeen mushkiladda iyo sheekada Susan. haddaba dadkii isbitaalka ku soo booqday yaa ka mid ahaa ayaad u malaynaysaa? waxaa ka mid ahaa ninkii qabay gabadha Susan habaryarteed dhashay. waa ninkii shiiqu uu u sheegayay inuu asaga ka shakisan yahay. ninkan maadaama uu ka mid ahaa qaraabada ugu dhowdhow ee qoyska Susan, sidaas ayuu isbitaalka ugu soo booqday aabbaha. waxa uuna ka mid ahaa dadkii faraha badnaa ee aabbaha soo booqanayay. dhanka kalena waxa uu ogaaday arrinka dhabta ah ee la xiriira gabadha sawirada laga faafiyey iyo in odayga mushkiladda haysataahiba ay gabadha la xiriirto. qaraabaduna waxay Susan aabaheed iskugu dardarayeen xoogaa lacag ah si uu ugu kaalmaysto isbitaalka. wiilkii markii uu u yimid Susan aabaheed, waxa uu ka waraystay xaaladdiisa. odayguna waxa uu uga warbixiyey xaaladdiisa, xanuunka haya, dhibaatada uu dareemayo, dhaqaalaha oo ku yar, dhammaan mashaakilkiisa ayuu uga sheekeeyey. kadibna waxa uu ku yiri, adeer, inta aad isbitaalka ku jirto oo dhan, wax alla iyo wixii qarash ah ee kugu baxa aniga ayaa bixinaya. wiilkiina sidaas ayuu ku kafaalo qaaday dhammaan lacagta ku baxaysa isbitaalka uu ku jiro Susan aabaheed. sidaa ayuuna muddo 4 bilood ah odaygaasi u garab taagnaa oo dhaqaalaha uu uga bixinayay. 4 bilood kadib, markii Susan aabaheed uu soo caafimaaday oo isbitaalkii laga soo bixiyey, asaga ayaa isbitaalka ka soo qaaday. kadibna waxa uu geeyey gurigiisa, wuuna iskaga tegay. kadibna Susan ayaa ogaatay arrinka. waxay ogaatay in wiilkii ay ka shakisanaayeen ayada iyo shiiquba uu aabbe ugu tegay isbitaalka.
dhammaan qarashkii oo dhan uu ka bixiyey kadibna uu guriga ku soo celiyey 4 bilood kadib wanaagaas oo dhanna uu sameeyey. Suusan waxay tiri astaghfirullah, ilaahayow iga cafi in wiilkaas aan niyaddayda xumaan ugu qaaday oo aan ka malaystay xumaantaas. Adigan i daawanaya ama i dhegaysanaya, ma waxaad u malaynaysaa in sheekadu ay sidaas ku socon doonto? May waad qaldan tahay. Sheekadu hadda ayayba bilaabanaysaa. Oo sidee? Hadda ayay sheekadu bilaabanaysaa. La yaabka oo dhanna hadda ayuu noo bilaabanayaa. Maalmo markii ay ka soo wareegatay, Suusan aabbaheedna uu gurigiisa joogay oo uu halkaasi iskaga nasanayay, ayaa waxaa mar kale soo booqday wiilkii asaga ahaa. Waa wiilkii qabay Suusan habaryarteed gabadha ay dhashay. Dhanka kalena waa wiilkii ay ka shakisanaayeen Suusan iyo sheekii ay la tashatayba. Wiilkii waxa uu soo booqday Suusan aabbaheed, uuna la sheekaystay oo xaaladdiisa ayuu weydiiyey. Suusan aabbaheed wuxuu yidhi, alla adeer, aad ayaad u mahadsan tahay. Ma awoodo inaan abaalkaada gudo. Qarash aad u badan ayaad iga bixisay, ilaa iyo haddana waad i garab taagan tahay. Ma aqaan waxaan kuugu abaalgudo. Wiilkii waxa uu ku yidhi, dhib ma lahan adeer, intaas ka badan ayaan isku leenahay, dhanka kalena qaraabo ayaan nahay. Waxaa xusid mudan, wiilkaani maadaama uu dowladda u shaqeeyo, waxa uu haystaa dhaqaale fiican oo mushaarka caadiga ah ee uu qaato waxaaba ka badan lacagta kale ee laaluushka ah ee xaaraanta ah ee siyaabaha dadban ku soo gelaysa. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku yidhi, adeer, dhib ma lahan waxaasoo dhan, intaas in ka badan ayaana isku leenahay, laakiin maanta arrin ayaan kuugu imid. Waxa uu ku yidhi adeerkii, maxay tahay arrintaasi? Wuxuu ku yidhi, adeer, waa arrin aan filayo inaad ku farxi doonto oo wejigaaduna uu la iftiimi doono. Waxa uu ku yidhi, dhib ma lahan, ee ii sheeg arrinku waxa uu yahay. Waxa uu ku yidhi, adeer, waan ogaaday sheekada. Waxaan ogaaday in arrinka xanuunkaada uu yahay mid xiriir la leh gabadhaada Suusan iyo sawirro laga faafiyey iyo in gabadha aad garaacday. Waxaasoo dhan waan ogaaday maadaama aan ahay qaraabo dhow. Adeerkii ayaa ku yidhi, iska badaay intaasi, waxaan ku fakarayay in ayada oo dhanba aan dilo. Waxa uu ku yidhi, may adeer, maxaad sidaas u samaynaysaa? Maxaad dembi isku gelinaysaa? Maxaad waxaasoo dhan u samaynaysaa? Wuxuu ku yidhi, maxaan sameeyaa? Wuxuu ku yidhi, dhegayso adeer, anigu hadda waxaan kuugu imid inaad i siiso gabadhaada Suusan ah oo aan ku guursado sida Allah iyo rasuulkiisu ay ogol yihiin. Odaygii aad ayuu u yaabay. Waa uu rumaysan waayey waxa uu maqlayo. Waxa uu ku yidhi, sidee ayay macquul u tahay? Wuxuu ku yidhi, adeer, miyaanan u qalmin gabadhaada inaan guursado? Waxaan doonayaa inaan guursado. Waxa uu ku yidhi odaygii, waxaad qabtaa gabadha walaasheed, yacni Suusan habaryarteed gabadhii ay dhashay, adiga ayaa qaba. Sidee ayaad tanna u guursanaysaa? Wuxuu ku yidhi, maxaa ka qaldan? Qaanuun ahaan iyo diin ahaan waxba kama qaldana. Midda kalena arrintaasi waxba kuma jabna. Waana ogahay gabadhan iyo mushkiladda jirta, aniga ayaana ku raba. Waxaana doonayaa in gabadha ceebteeda aan sidaa ku asturo maadaama ay walaashii tahay. Odaygii waxa uu ku yidhi, dhib ma lahan, waan ka soo tashanaynaa, hooyadeed ayaan la soo tashanayaa, sidaa ayaana isku ognahay. Odaygii inta uusan gabadha hooyadeed u tegin, waxa uu bilaabay inuu fekero. Waxa uu ku fekeray, maadaama aadba ku fekeraysay in gabadha aad disho, ka waran haddii aad ninkan iskaga guuriso oo ceebteeda ay sidaasi kaaga asturanto. Dhanka kalena, maadaama ninkaani uu og yahay gabadha iyo mushkiladda jirta iyo in sawirro laga faafiyey, xogtaasoo dhan maadaama uu hayo, lagama baqaayo in hadhow uu gadaal ka ogaado xogta oo uu furo, maadaama asagoo ogba uu guursanayo. Arrinku waa uu la wanaagsanaaday, wuuna la qurux badnaaday. Inta uusan hooyadii u tegin ayuu mar kale waxa uu la kulmay isla wiilkii. Su'aal kale ayuu weydiiyey. Wuxuu ku yidhi, wiilkaygiyow, ma hubtaa inaad doonaysid inaad guursato gabadhayda Suusan ayadoo maskaxdaadu ay fayowdahay? Wixii aad itiri horta ma taqaanaa? Wiilkii waxa uu ku yidhi, adeer, miyaanan u qalmin inaan gabadhaada guursado? Xitaa meherka ay doonayso diyaar ayaan ula ahay, aniga ayaana guursanaya. Bis odaygii waa uu ka soo tegay wiilkii, waxa uuna u yimid gabadha hooyadeed, waxa uuna u sheegay arrinta. Hooyadii waxay ku tiri, sidee ayuu u guursanayaa gabadhayda Suusan asagoo qaba gabadha walaasheed? Arrintaasina macquul ma ahan. Wuxuu ku yidhi, maxaa ka qaldan ii sheeg? Diin ahaan
iyo qaanuun ahaan waxa ka qaldan ma ii sheegi kartaa? Kadibna hooyadii way iska aamustay. Wuxuu ku yidhi, arrintaasi waa go'aan anigu aan gaaray, gabadhaana ninkaas waan u guurinayaa ee sidaasi ogow. Waxay ku tiri, dhib ma lahan haddii aadba go'aankaasi qaadatay, aniguna waan kugu waafaqsanahay. Laakiin wiilkii ayaa adeerkii waxa uu ku yidhi, adeer waxaan wataa hal shardi. Adeerkii waxa uu ku yidhi, waa maxay shardiga aad wadato? Aniga adigu soo go'aan islama aanan meel dhigin. Waxa uu yidhi, adeer sidaad og tahay anigu waxaan ahay xaasle, waxaana qabaa Suusaan walaasheed, isla ayada ayaana doonayaa inaan hadda guursado. Shardigayguna wax kale ma ahan, waxaan doonayaa in ay ii deganaato isla gurigaada, oo gurigaadan weyn aan qol ka degno, halkaasna muddo kooban ay gabadhu ii joogto, kadibna guri ayaan iibsanayaa, gurigayga ayaana geysanayaa. Intaas oo keliya ayaan u baahanahay inaad iga caawiso. Adeerkii waxa uu ku yidhi, dhib ma lahan, soo dhawow, wax culaysa ma lahan arrintaasi. Ilaa iyo hadda gabadhii Suusaan ahayd sheekadaasi looma sheegin. Hooyadii ayaa baxday, gabadheydii ayayna u sheegtay sheekada. Waxayna u sheegtay in go'aankaasi uu gaaray aabbaheed, qasabna ay tahay inay oggolaato guurka ninkaas. Gabadhii Suusaan ahayd aad ayay uga carootay. Waxay tiri, hooyo, markii horeba anigu ninkaas waa aan necbaa, midda kalena waxa uu qabaa gabadhii habaryartay, sidee ayaan u guursanayaa? Hooyadii waxay ku tiri, isdeji, arrinkan waxaa go'aansaday aabbaha. Midda kale ma og tahay in aabbaha hadafkiisu uu ahaa in adiga uu ku dilo oo magaalada bannaankeeda uu kugu soo aaso? Xaqiiqadu waa midaasi ogow. Gabadhii markii ay warkii maqashayba waa ay naxday, waxayna tiri, hooyo, waan oggolahay, wax dhiba ma lahan insha Allah. Suusaan iyo wiilkii asaga ahaana sidaas ayay isku guursadeen. Gurigii qoyska ayaa hal qol oo ka mida loo habeeyey, jiifkooda loo dhigay, halkaas ayuuna ugu yimaadaa oo uu uga tagaa. Muddo ayayna halkaasi ku noolaayeen, bil, 2 bil, ilaa iyo 3 bil. 3 bil kadibna gabadhii Suusaan ahayd uur yar ayay yeelatay. Gabadhii ayadoo maalin maalmaha ka mida gurigeeda iska joogta ayaa waxa u yimid Axmed. Haddaba Axmed waa kuma? Axmed waaba wiilka aan ka sheekaynayno, waa ninka ayada qaba. Waa uu u yimid, wuu la fariistay, laakiinse waxa uu ula yimid musiibadii ugu weyneed, warkii ugu la yaabka badnaa ee weligeed ay maqasho Suusaan. Waxa uu ku yidhi markii ugu horreysayba, Suusaanay, waad og tahay muddo ayaan ku noolayn guriga familkaada. Waxaan doonayaa hadda inaan guri iibsado oo aan ku geeyo gurigaasi. Waxay ku tiri, aad ayaad u mahadsan tahay, arrin fiican ayaad samaysay, go'aan fiican ayaad qaadatay. Aniga muhiimadeydu waa in hal mar guriga hooyaday iyo aabbahay aad iga wado. Wuxuu ku yidhi, isdeji, dhegeyso. Soo ma ogid in anigu aan dowladda u shaqeeyo? Midda kale, soo ma ogid in lacago aad u badan ay soo galaan bil walba oo aan ku helo laaluush iyo siyaabo kala duwan? Waxay ku tiri, dhib ma lahan. Wuxuu ku yidhi, dhegeyso, waxaan ku dejinayaa guri aad u qurux badan. Gurigaasna adiga magacaada ayaan ku qorayaa oo adiga ayaa iska leh, waana hadiyad. Laakiinse hal shardi ayaan wataa. Waxay ku tiri, waa maxay shardigaasi? Wuxuu ku yidhi, waxaan doonayaa in habeen walba oo khamiis ah aan gurigayga ku dhigto xaflad yar. Xafladdaasna adiga ayaa igala shaqaynaya. Waxay ku tiri, dhib ma lahan, waxaanba u wada joognaa, waa inaan iscaawinno, taasna wax culaysa ma lahan. Wuxuu ku yidhi, dhegeyso, weli ma aadan fahmin hadalkayga. Waxaa habeen kasta oo khamiis ah noo imaanaya mid ka mid a asxaabtayda, asaga ayaana xafladdaasi u dhigaynaa. Habeenkaasna ma seexanayo meel kale ee annaga gurigeenna ayuu nala jiifanayaa. Waxay ku tiri, dhib ma lahan, waan soo dhaweynaynaa, waa qof marti ah, waana hagaajinaynaa. Wuxuu ku yidhi, weli ilaa iyo hadda imaadan fahmin. Aniga iyo midkaas ka mid ah asxaabtayda ee habeenkaasi noo imaanaya iyo adiga meeshaasi ayaan khamro ku wada cabaynaa, halkaasi ayaana ku baashaalaynaa. Gabadhii aad ayay u yaabtay, hadalkiisana waa ay fahmi weysay. Wuxuu ku yidhi, isku day in caqligaada aad kor u qaado oo aad i fahamto. Qofkaasi habeenkaasi waxa uu qaban karaa xitaa shaqadii anigu aan qaban lahaa. Yacni xitaa haddii uu kaa dalbado inaad sariirta qolka jiifka wada aadaan, wax culaysa ma lahan. Oo qofkaasi waxaan doonayaa inaan lacago aad u badan ka qaado, arrintaasna asaga aan ku soo jiito. Adigana lacag haddii aad u baahan tahay waan ku siinayaa.
gabadhii mar kale ayaa cirka looga soo dhacay, aad ayay u naxday. Waxay dareentay in musiibo kale ay ku soo fool leedahay. Waxay la yaaban tahay waxa dhacaya. Waxay ku tiri, maxaa kuu dhacay? Sidee ayaad ereygaas ii tiri? Maxaa kaa qaldan? Wuxuu ku yiri, isdeji, ma doonayo in hadalkaasi ay dadka familkaada ka midka ahi ogaadaan. Waa inaad isdejiso, halkaasna mowduuca noogu xir, mar kale ayaan ka sheekaysan doonaa. Kadibna waa uu iskaga soo tegay. Waxa uu doonayaa in gabadha arrintaasi uu si tartiib ah uga dhaadhiciyo, ugu dambayna ay ka ogolaato arrintaasi foolxumada badan. Waa nin aad u dhaqan xun, waa nin darajada bini'aadamka hoos uga dhacay. Waa xayawaan, xitaa xayawaan kuma tilmaami karnee, waa nuuc eeyaha ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii waxay bilowday inay fikirto. Waxay la yaaban tahay ninkii wanaagga badnaa, aabbaheed sidaa u soo caawiyey, haddana ayada ka badbaadiyey geeri maadaama aabbaheed uu dili lahaa. Ninkii asaga ahaa in xumaantan oo kale uu ula yimid, aad ayay u yaaban tahay. Hooyadeed iyo aabbaheed sheekadan uma sheegi karto oo waa ay ka cabsanaysaa. Dhanka kalena haddii asaga ay isku dhacaan oo uu iska furo, haddana aabbaheed waa uu dilayaa, oo markii horeba qorshihiisu waxa uu ahaa inuu dilo oo ceebteeda uu isdhaafiyo. Gabadhii aad ayay u wareertay. Qof ay arrinta kala hadashana way garan weysay. Isla markii waxaa maskaxdeeda ku soo dhacay ninkii shiiqa ahaa. Shiiqii ayay wacday. Hello, assalaamu calaykum. Wuxuu ku yiri, wacalaykum assalaam. Waa ayo qofka ila hadlaya. Waxay ku tiri, shiiqow, waa gabadhii hadda ka hor ku soo wici jirtay ee magaceeda kuugu sheegtay Suusan ee dhibaatadu haysatay. Waxa uu ku yiri, waaw, waan ku waayey, meel aad ka baxday ayaan waayey. Markii kadibna iguma aadan soo warcelin. Ii waran oo xaaladaada ka waran. Waxay ku tiri, shiiqow, xaaladaydu waa intii aad ogeed, laakiinse wixii dheeraad ah ayaan kuu sheegayaa. Markii waanigii iska soo furay wiilkii adeerkay, kadibna waatii aad ila talisay oo qofkii isoo wacayay blog ayaan saaray, laakiin qofkii waxa uu ka dhabeeyey hanjabaadiisii. Aabbahay ayuuna sawirradeydii soo gaarsiiyey. Aabbahayna dhibaatadaas ayuu ii geystay, asaguna waa uu xanuunsaday. Laakiin waxaan aad ula yaabay in aabbahay uu isbitaalka ku soo booqday wiilkii qabay gabadha habaryartay. Waa wiilkii aad ka shakisay oo aad sheegtay inaad aad uga shakisan tahay. Si kastaba ha ahaatee, aabbahay ayuu aad u caawiyey dhanka dhaqaalaha. Kadibna aniga ayuu iga badbaadiyey geeri, oo waxa uu go'aansaday inuu i guursado, ceebteydana uu asturo. Laakiinse maxaa waxaasi oo dhan ka dambeeyey? Waxa uu iga dalbaday arrin la yaab leh. Waxa uu iga dalbaday in guri uu i geysanayo, laakiinse uu niman ii keenayo oo nimankaasi aan gogol kula kulmayo. Shiiqii aad ayuu u yaabay. Waxa uu la yaaban yahay waxa ay gabadhu ku hadlayso. Wuxuu ku yiri, horta adigu ma dhiman ayaa tahay? Wuxuu shiiqu dareemay in gabadhaani ay tahay qof maskiin ah oo aan wax go'aana lahayn. Wuxuu ku yiri, ii dhiib hooyada, waxaan doonayaa inaan la hadlo. Waxay ku tiri, shiiq, maxaa dhacay? Wuxuu ku yiri, i dhageyso, iigu dhiib hooyada, aniga ayaa si degan ula hadlaye. Kadibna gabadhii Suusan ahayd, hooyadeed ayay taleefankii u dhiibtay. Hooyadii markii ay taleefankii qabatay, saacodkii shiiqa ayayba aqoonsatay. Waa shiiqii qaraabada. Wuxuu ku yiri, assalaamu calaykum. Waxay ku tiri, wacalaykum assalaam. Kadibna wuxuu ku yiri, waxaan doonayaa inaan kaala hadlo arrin muhiim ah. Waa inaad caalamka oo dhan ka fogaato, yacni dadka buuqiisa iyo dhammaan howlaha waa inaad ka fogaato. Si degan ayaan rabaa inaan kuula hadlo. Arrinka aan rabo inaan kaala hadlana waa arrin u baahan xikmad iyo deganaan. Kadibna hooyadii ayuu si degan ugu sheekeeyey. Wuxuu ku yiri, wiilka aad gabadhiina siiseen oo haatan gabadhu guriga ay u joogto oo uurka ay u leedahay, wax aqoon ah miyaad u leedahay? Waxay ku tiri, haa, waan garanaynaa. Waa wiil qaraabadeenna ah, aad ayuuna gabadheena nooga asturay, waana nin aad u wanaagsan oo abaal nagu leh. Markaas ayuu bilaabay inuu uga sheekeeyo wixii dhacay, in gabadheeda markii ugu horreysayba meeshii laga soo galay ay ahayd hanjabaad loogu hanjabayo sawirro ay gashay. Kadibna in qofkaasi uu ku qasbay in wiilkii adeerkeed ay iska soo furto. Kadibna ugu dambeyn qofkii uu sawirradii soo gaarsiiyey aabbaha. Wuxuu ku yiri, haddaba su'aashu waxay tahay, sidee ayuu ninkaasi gabadha xogteeda oo dhammaystiran ku helay? Sidee ayuuse sawirradaasi ku helay maadaama gabadhu sawirrada ay u dirtay oo keliya
gabdhaha habaryarteed. midda kale su'aashu waxay tahay markii gabadhan uu ninkaani guursaday kadib halkee ayuu ka baxay qofkii u soo hanjabayay? aaway qofkii u soo hanjabayay ee soo wici jiray? gabadhii ayuu la hadlay, wuxuu ku yidhi markii uu ninkaani ku guursaday kadib ma ku soo wacay qofkii kuu hanjabi jiray? waa maya. gabadhii waxay tiri maya, qofkaasi mar dambe ima soo wicin. markaas ayuu shiiqii wuxuu hooyadii ku yidhi haddaba hooyo, waxaad ogaataa ninka gabadha markii horeba mustaqbalkeeda dumiyey oo dhibaatada intaasi la eg u geystay waa isla ninka gabadha aabbaheed ugu tegay isbitaalka ee wejiga fiican ka samaystay ee dhaqaalaha ku bixiyey, haatanna gabadha idinka soo doontay ee gabadha idinka guursaday. midda kalese ma og tahay waxa uu haatan gabadha ka dalbaday? waxay ku tiri may. muxuu ka dalbaday? wuxuu ku yidhi wuxuu gabadha ka dalbaday in guri gooni ah uu degsan doono, laakiinse uu niman u keeni doono, nimankaasna ay gabadhaani gogosha ku qaabili doonto asagoo gabadha ka faa'iidaysanaya oo dadkaasi lacag ka samaynaya. hooyadu sheekada oo dhan ayayna fahamtay, waxayna tiri shiiqow hadda maxaan samaynaa? shiiqii ayaa ku yidhi waa inaad ku dadaasho sidii aad ninkaasi gabadhaada uga furi lahayd. kadibna hooyadii arrinkii ayay ku dhaqaaqday. waxay wacday ninkii Axmed ahaa, waa ninkii dayuuska ahaa. waxay ku tiri ii imow. wuxuu ku yidhi hooyo, maxaa jira? waxay ku tiri waxbaa jira, waa inaad si degdega iigu imaato. kadibna waa uu u yimid. markaas ayay bilowday inay xaqiiqada u sheegto. waxay ku tiri gabadhan walaashaa ah markii ugu horreysay sawiradeedii ayaad u soo dirtay, kadibna waxaad ku qasabtay inaad nolol cariiri ah geliso oo aad ninkeeda ka furto. ugu dambaynna sawiradii waxaad soo gaarsiisay aabbaheed, mustaqbalkeedii waa dumisay. aabbaheedna waxaad ku kaliftay inuu xanuunsado, kadibna waxaad iska dhigtay qof wanaag u samaynaya. ugu dambaynna gabadhii ayaad ka soo doonatay. markii ugu dambaysayna waxaad ka dalbatay inaad niman u keento oo nimankaasi ay gogosha ku qaabisho oo adiguna aad halkaasi dhaqaale ka samayso. waxaad tahay dayuus, waxaad tahay nin xun, waxaad tahay ey, waxaad tahay wax walba oo xumaan ah oo erayo lagu cabiri karo. haddaba waxaan kaa doonayaa in gabadhayda aad hadda iska furto. soo ma ogid suusaan aabbaheed in jacayl uu gabdhihiisa u qaba dartiis uu gacantiisa xabad ugu dhuftay? soo ma ogid in gabdhihiisu ay wax walba uga dhigan yihiin? soo ma ogid inuu hubaysan yahay oo gurigiisa noocyada kala duwan ee hubku ay yaallaan? ma og tahay inaad dhimanayso haddii uu arrintaani ogaado? inta badanna qofka dembiilaha ahi marka uu xaqiiqada ogaado waa uu isku naxaa, waana uu cabsadaa. markaas ayuu yidhi dhib ma lahan haddii ay sidaas tahay. haddiiba mar ay hub gaartay, anigu waxaan doonayaa inaan gabadhaada iska furo, arrintaana aabbaha gaarsiinin. aniga ayaa gabadha iska furaya haddiiba intaas ay tahay waxa aad doonayso. kadibna arrintii ayuu ku dhaqaaqay. hooyadu ma doonayso in arrintaani ay aabbaha u sheegto. muhiimaddeedu waa keliya in gabadheeda ay asturto. ninkii asaga ahaa muxuu sameeyey? waa uu baxay. waxa uu u tegey suusaan aabbaheed oo meeshiisii shaqada jooga. wuxuu ku yidhi adeer, arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego. wuxuu ku yidhi soo dhowow, maxay tahay arrintu? wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan iska furo gabadhaada suusaan, maadaama aan isfahmi la'nahay aniga iyo ayadu. wuxuu ku yidhi maxaa kugu dhacay? maxaad isku fahmi weyseen? ii sheeg waxaa jira iyo sida ay wax u jiraan. wuxuu ku yidhi dhib ma lahan adeer, waxba ma jiraan, keliya waxaan doonayaa inaan iska furo. adeerkii waa uu xanaaqay. wuxuu ku yidhi dhegayso, waa inaad ii sheegto sabab macquul ah oo gabadha aad ku furayso. soo gabadhu ma ahan midii aan intaasoo bilood anigu kuu hayay? soo ma ahan gabadhii aad iga codsatay inaan kuu guuriyo? ii sheeg sabab lagu qanci karo oo aad ku furayso, haddii kale aniga iyo adigu waan isku baxaynaa. ninkii waa uu naxay markuu hadalkaasi maqlay. kadibna wuxuu ku yidhi adeer dhib ma lahan, arrinka furriinka dib ayaan u dhigaynaa, maadaama ay gabadhu hadda uur leedahay, markay dhasho kadib ayaan ka dhiganaynaa. wuxuu ku yidhi isdeji, waa inaad ii keento aabbaha iyo adeerada, haddii kale aniga iyo adigu isma huri doono. kadibna ninkii asaga ahaa waa uu cabsaday, wuuna ka soo tegey. waxa uu ka cabsanayaa in aabbuhu uu arrinta ogaado oo xaqiiqada dhabta ah ee hooyadu ay ogaatay uu aabbuhu ogaado. kadibna isla markiiba waxa uu u tegey adeerkiis iyo aabbihiis. waxa uu soo waday adeerkiis iyo aabbihiis,
waxa uuna u keenay Suusan aabaheed. Haddaba adeerkaas uu wado ma waxaad u maleynaysaan inuu qof kale yahay? Qof kale ma ahane, waa shiiqii qaraabada. Asaga adeerkiis aabihiis la dhashay waaba shiiqii qaraabada, waa ninkii horay uga shakisanaa asaga. Kadibna waa la wada fariistay si arrintaasi looga wada hadlo. Suusan aabaheed wuxuu yidhi, adeeryaal, ninkan ayaan gabadhayda u guuriyey, muddo dhowr bilood ahna gurigayga ayaan ugu hayay, haddana uur ayay u leedahay. Wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu gabadha iska furo. Waxaan doonayaa inuu ii sheego sabab lagu qanci karo oo gabadhayda uu ku furayo. Haddii kale aniga iyo asagu waxaan u malaynayaa inaanan ishuri doonin oo aan gacmaha iskula tegi doono. Waxay ku dhaheen, isdeji, maxaa dhacay? Isdeji, ma meel kale ayaad ka xanaaqsan tahay? Wuxuu ku yidhi, waxba kama xanaaqsaniye, waa inuu ii sheego sabab macquul ah oo gabadhayda uu ku furayo. Ninkii ayaa lagu yidhi, hadal, maxay tahay sababta aad gabadha ku furayso? Wuxuu yidhi, waad ogtihiin anigu inaan xaasle ahay oo xaas kale ayaa ii joogta. Xaaskayguna waa ii ogaatay arrintan, kadibna waa ii ka carootay. Waxayna ii sheegtay inay isdilayso haddii aan iska furi waayo Suusan. Sidaa darteed waxaan doonayaa inaan iska furo. Markaas ayuu Suusan aabaheed wuxuu yidhi, gabadha aad qabto oo ah gabadhan ina habaryarteed, mar hore ayay ogeyd inaad Suusan guursatay. Markii horena warkaasi ma uusan jirin, ee waa maxay waxa soo cusboonaaday? Ii sheeg, ilaa iyo hadda kuma aanan fahmin. Kadibna waxa uu la soo baxay bastooladiisa, wuxuuna yidhi, wiilkani waa inuu sheego sabab macquula oo gabadhayda uu ku furayo, haddii kale meeshan qof ayaa ku dhimanaya. Subxaanallah, waxaadba moodaa in aabbaha uu Ilaahay ku salliday wiilka. Maxaa yeelay aabbuhu waxbuu dareemayaa, inkastoo uusan xaqiiqada ogeyn, haddana Ilaahay ayaa aabbaha ku salliday wiilka, oo aabbuhu mar walba waxa uu eegayaa wiilka xaggiisa. Kadibna shiiqii qaraabada oo arrinta oo dhan fahamsan ayaa wiilkii waxa uu ku yidhi, hadal, waa inaad xaqiiqada sheegto. Kadibna wiilkii waxa uu yidhi, shiiqow, adeerow, sidaasay wax u jiraan, gabadhaas dhibkaasaa gaaray, halkaasay ahayd. Kadibna gabadha ayaan guursaday si aan u asturo. Ugu dambeynna xaaskayga ayaa maseyrtay, waxaan go'aansaday inaan iska furo. Wuxuu ku yidhi, intiina kale waxaan idinka codsanayaa inaad bannaanka tagtaan. Waxaan doonayaa inaan si gaara ula hadlo Suusan aabaheed oo aan la tashado. Kadibna raggii kale oo dhan bannaanka ayay u baxeen. Shiiqii qaraabada iyo Suusan aabaheed ayaana qolkii fadhiga ku haray, labadooda oo keliya ayaana halkaasi ku jiray. Shiiqii qaraabada muxuu hadal ka bilaabay ayaad u malaynaysaa? Waxa uu Suusan aabaheed ku yidhi, idhagayso, haddii aadan wiilkan adigu dilin, aniga oo adeerkiis ah ayaa dilaya. Suusan aabaheed waa uu yaabay, maxaad ula jeedaa? Wuxuu ku yidhi, idhagayso, ninkan waxa uu sawirada Suusan ka soo qaatay gabadha ay dhashay Suusan habaryarteed oo ah asaga xaaskiisa. Kadibna sawiradii ayuu ugu hanjabay, asaga ayaana ugu dambeyn ka dalbaday in wiilka adeerkeed ay iska furto. Ugu dambeynna asaga ayaa sawiradeeda ku soo gaarsiiyey, asaga ayaana kaa samaystay weji oo gabadhii kaa soo doontay, asaga ayaana kaa guursaday oo hadda kaa qaba. Midda kalena ma ogtahay waxa uu hadda ka dalbaday gabadha? Midda kalese waxba kalama socotid miyaa sheekada? Suusan aabaheed wuxuu yidhi, wallaahi inaanan waxba ka ogeyn, ee ii dhammaystir sheekada. Wuxuu ku yidhi, waxa uu gabadha ka dalbaday inuu guri geysanayo, kadibna halkaasi uu niman ugu keenayo oo nimankaasi ay gogol ku qaabili doonto, sidaana uu lacag uga samayn doono. Haddaba ninkaani waa inaad adigu disho ama aniga ayaa dilaya. Suusan aabaheed waa uu yaaban yahay, waxa uu dareemayaa sida in uu riyoonayo oo kale. Durba caradii ayaa ku soo degtay, bastooladiisa ayuu soo qaatay, bannaanka ayuuna u soo baxay. Wuxuu yidhi, aawi Axmed. Raggii kale ayaa bannaanka taagan, waxay ku dhaheen, Axmed waa uu baxay. Wuxuu yidhi, waxaan ka soo laabanayaa meel meeshaan ah, hadda ayaana imaanayaa. Waxa uu bilaabay inuu raadiyo, waa la qabtay oo waa la celiyey. Waxaa lagu yidhi, isdeji, maxaa kugu dhacay? Inteed u socotaa? Carada iska deji. Wuxuu ku yidhi, idhagaysta. Shiiqii ayuu u yeeray. Kadibna shiiqii ayaa raggii oo dhan waxa uu u sheegay sheekada oo dhammaystiran. Haddaba raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed aabihiis. Axmed aabihiis aad ayuu u carooday, wuuna la yaabay waxa uu maqlay. Wuxuuna Suusan aabaheed ku yidhi, idhagayso,
haddii aadan dayuuskan adigu dilin aniga ayaa dilaya oo aabbihiis ah. haddaba su-aashu waxay tahay, ninkii Axmed ahaa muxuu sameeyey markii uu baxay kadib? waxa uu u tegey mid ka mid a asxaabtiisa, waxa uuna u sheegay sheekada oo dhammaystiran. wuxuu yidhi, aniga 2 jeertaba waa lay dilayaa ee waxaan doonayaa inaad i badbaadiso. wiilkii ayaa wuxuu ku yidhi, waan ku wadayaa, waxaana ku geynayaa magaalo kale oo aan lagaa garanayn. halkaas ayaadna ku noolaanaysaa, xaaskaada iyo carruurtaadana waad soo wadanaysaa. xaaskaada iyo carruurtaadu miyay arrinta ogyihiin? wuxuu ku yidhi, may, xaaskaygu arrinta ma oga. wuxuu yidhi, durba xaaskaada iyo carruurtaada soo wado, waxaan ku geynayaa magaalo kale, halkaas ayaadna ku noolaanaysaa. laakiinse inta ay sheekadaasi dhacayso, isla markaas ayaa Suusan iyo hooyadeed waxaa soo booqatay Caaisho. haddaba Caaisho yay tahay? Caaisho waa gabadhii ay dhashay Suusan habaryarteed, sidoo kalena waa xaaskii Axmed. waxay soo booqatay Suusan iyo hooyadeed isla xilligaasi. Suusan hooyadeedna markii ay aragtay gabadhii ay habaryarta u ahayd oo maskiin ah oo waxba aan ogeyn oo nin dayuusa uu qabo, way adkaysan weysay, waxayna go'aansatay inay xaqiiqada u sheegto. dhanka kalena gabadhan Caaisho ah waaba musiibadu meesha ay ka bilaabatay, sabab ayada ayuu ninkaani ka qaatay sawirada Suusan. haddaba hooyadii gabadhii ayay u sheegtay sheekadii oo dhammaystiran. waxay uga soo bilowday bilowgii ilaa iyo dhammaadkii ayay uga sheekaysay. gabadhii run ahaantii aad ayay u murugootay. waxay bilowday inay iska oyso. waxay tidhi, habar yar, anigu ma aanan ogeyn waxaanoo dhan, laakiinse wallaahi inaanan oggolaan doonin inay sidaani wax ku socdaan. gabadhii durba waxa ay ku laabatay gurigeedii. markay gurigii sidaa u tagtay oo ay carruurteedii u tagtayba, isla markii waxaa guriga soo galay ninkii Axmed ahaa oo doonaya inuu ayada iyo carruurteedaba qaato oo uu ula safro meel aad u fog. waxay ku tiri, isdeji. wuxuu ku leeyahay, soo baxa dhaqsada, safar ayaan gelaynaa, meel ayaan shaqo degdega u aadayaa, arrin degdega ayaa igu soo korortay, isdiyaariya. gaari ayaaba bannaanka u taagan. ninkan waxa uu isku diyaarinayaa in xaaskiisa iyo carruurtiisaba uu meesha kala baxsado. waxa uu ka baxsanayaa geeri, laakiin geeridu marba haddii ay kuu soo socoto lagama baxsan karo. gabadhii aad ayay uga caraysan tahay, wayna og tahay xaqiiqada, laakiinse asagu ma oga inay ayadu og tahay. isla markiiba waa ay baxday, jikada ayay gashay. waxay soo qaadatay mididii aadka u dheereed ee qudaarta ay ku jarjaran jirtay. kadibna asagoo sii jeeda ayay dhabarka uga dhufatay. waa gacanqaadkeedii koowaad. tii labaadna markuu soo jeestay ayay xabadka uga dhufatay. middaas ayaana ahayd midda uu u dhiman doono. markii uu dhulka ku dhacay ayay la hadashay, waxayna ku tiri, midda koowaad waxaan kaaga aarayay gabadhii habaryartay oo mustaqbalkeeda aad dumisay. midda labaadna waa inaad aniga ila guursatay oo aad i khiyaantay. dayuuskii Axmed ahaana dhulka ayuu ku dhacay, cirka ayuuna fiirinayaa. waxa uuna tufay neeftiisii ugu dambaysay, halkii ayuuna ku geeriyooday. isla markiiba waxaa guriga soo gargaraacay Axmed aabbihiis iyo Suusan aabbaheed oo isla socda. waa labadii oday. maxaad u malaynaysaa inay u socdaan? labadooduba waa ay hubaysan yihiin, waxayna u socdaan inay Axmed dilaan. guriga ayay soo gargaraaceen. waxaa ka furtay Caaisho. markii ay ka furtay waxay ku dhaheen, aaway Axmed. gabadhii way iska oysay. waxay ku dhaheen, maxaad la oynaysaa? waxay ku tiri, Axmed gudaha ayuu ku jiraa, waana dilay. waxay ku dhaheen, maxaad ula jeedaa? waxay ku tiri, Axmed aniga ayaa dilay. kadibna gudaha ayay soo galeen, waxayna arkeen meydkii Axmed oo dhiiggiisa dhex dabaalanaya. Axmed aabbihiis ayaa dhoola caddeeyey, wuxuuna Caaisho ku yidhi, Caaishooy, waxaad qabatay shaqadii ugu wanaagsaneed ee lagaa doonayay inaad qabato. aslanna ninkaani maadaama uusanba nin raga ahayn, uma uusan qalmin in nin raga gacantiisa uu ku baxo, ee waxa uu u qalmay in qof dumara gacanteeda uu ku dhinto. shaqo wanaagsan ayaadna qabatay gabadhaydiyey. markaasi kadib ma jirin qof raalli ka ahaa in ninkan meydkiisa uu dhaqo, kafano ama uu ku dukado. way qaadeen, god ayayna ku rideen, halkii ayayna uga soo tageen. kadibna qisadiisa ayaa sidaasi ku faaftay. Suusan hadda waxay dhashay wiilkii ay caloosha ku waday. waa wiilkii uu dhalay Axmed. haddana waxay haysataa
wiilkeedii yaraa oo qurux badan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa Suusan inuu qalbigeeda u qaboojiyo, nolosheedana uu u qurxiyo. Haatanna Suusan oo wiilkeeda haysata ayaa ku nool nolol wanaagsan oo qoyskeeda la nool. Waxaana gabar walba kula talinayaa in marka ugu horreysa ay Allah ka cabsato. waxaadna ogaataan musiibo walba waxay ka bilaabataa dembi. wamaa asaabatkum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum. sababtoo ah gabadhan markii ugu horreysayba waxay samaysay qalad oo ayadoo la qabo ayay go'aan ku gaartay inay rag kale kala hadasho baraha bulshada, laakiin halkii ayay dhibaato ka soo gaartay. midda kalena mushkilad ayaa qabsatay oo sawiradeedii ayaa loogu hanjabay. kadibna waxay go'aansatay in mushkiladaasi ay ku xalliso dembi kale oo ah inay ninkii u dirto sawirro kale oo dheeri ah. midda kalena waxaan kula talinayaa aabbayaasha inay gabdhahooda la saaxiibaan. si kastaba ha ahaatee, qisadan waxaad gaarsiin kartaa gabar kasta oo aad jeceshahay. waxaadna uga diri kartaa WhatsApp-ka, Messenger-ka iyo wixii la mid ah. ugu dambeynna waa walaalkiin Efiye oo idinka codsanaya inaad muuqaalka like saartaan si uu meel fog u sii gaaro. sidoo kale channelka subscribe saar haddii aad markii ugu horreysay halkan soo booqanayso. waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe nabaadino. وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك